xildhibaanada agaasimayaasha waaxyaha martida jaamacadaha kala duwan ee Muqdisho martida injineerada maamulka gobolka Banaadir wasaaradaha shaqada nagala dhaxayso sida wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda qorsheynta dhammaan marti sharafta kale bahda saxaafadda waa salaama salaanka bacdi workshop-kan oo ah wejigii labaad ee wada tashiga diyaarinta shuruucda jidadka iyo traafikada oo muddo aad u dheer socday hadeerna marayay wejigiisii gabagabeynta ahay si shuruucdaas loo baas gareeyo loona gudbiyo hay-adihii ku shaqada lahaay wada tashigeena dheer ee labada maalmood noo socday doodihii la galay iyo shuruucdii iyo qodobadoodii aan sida hoose u dhex galnay waxaan isku afgaranay maadaama sharcigii hay-adda garabka naga siineysay ee GISAT ay soo diyaariyeen doodaheena hore waxaa ku jiray sharcigaas maadaama luqadda ingiriiska uu ku qoraay annagana aan nahay dad Soomaaliyeed dadka sharcigaas ku dhaqmi doonana ay yihiin dad Soomaaliyeed in loo turjumo af Soomaali marka waxyaabihii aan isku afgaranay waxaa ka soo baxday sharcigii markii aan akhrinay maalmahan oo dib u eegis ku sameynayna shuruucdii qaladaad yar yar oo dhinaca turjumida ah ee afka Soomaaliga markii la turjumayay in la saxo qodobka koowaad oo isku afgaranay waxay tahay in saxid yar lagu sameeyo qaladaadka yar yar oo typing error-ka ahay ee afka Soomaaliga oo macnaheeda si sax ah aan loo fahmeynin qodobka labaad oo isku afgaranay waxaa ka mid ah in erey bixinada qaarkood oo ummaddu ay wada fahmi karin maadaama ereyo national Soomaali loo turjumayay in ayagana qaar ka mid ah oo calaameynaya jira erey bixiyano la isla fahmi karo ayagana in laga dhigo ayadana waa isku raacnay waxaan kaloo isku raacnay qodobka saddexaad ah in wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska ay markii aan shirka wada tashiga soo gabagabeeyay kadib ay sameyn doonto kulan gaaban oo ay ugu yeeri doonto wasaaradda gaadiidka iyo traafikada iyo arintaas oo looga hadli doono shuruucdii traafikada iyo jidadka inta kale waxyaabihii shuruucdaas ku saabsanaay iyo waxyaabihii la soo diyaariyay iyo wada tashigeennii aad ku dheeray ee ku soo jirnay waan la isku wada raacay waxaan rabnaa hadeer madaxda nala joogta ee u sareeyo wasiirka wasaaradda howlaha guud Mr. Engineer Saadiq Cabdullaahi Cabdi oo nala fadhiya iyo martida kale inaan hortooda ka cadeyno inaan validation-ki sameynay oo isku raacnay wixii maalmahan aawadnay marka fadlan mar labaad aan ku celino gacantaagi si inaan arintaas raali ka wadanahay wasiirka hortiisa aan ka cadeyno mar labaad aad u mahadsantiin